maanta halkan waxaa ku baraneynaa sida loo sameeyo rooti oven lagu dubay oo sidaas u jilicsan sidaas u gaduudan. sidoo kale waxaa baraneynaa chicken curry iyo chicken curryga ugu talagalnay in rootiga lagu cuno. sida aad u barato sida loo sameeyo rootigan quruxda badan iyo chicken currygan aadka u macaan nala joog ilaa dhamaadka. halkaana waxaan kasoo bilaabeynaa rootigii sida loo sameyn lahaa. marka hore waxaan baaquli kusoo shubaneynaa bur qiyaastii aan isticmaali lahaa. kadib waxaan kaloo kusoo darayaa cusbo yar. haddana waxaan kaloo kusoo darayaa fixiso. kadib waxaan soo qaadanayaa biyo qandac oo ugu talagalay inaan ku qasto burkaas aan meesha kusoo diyaarsaday. biyo qabow kuma qasaysid, biyo qandaca ku dareysa. dadka qaar waxay isticmaalaan ukun, laakiin aniga ukunta waa iska daayay. haddii aad muhiim ay ku tahay ukunta waa isticmaali kartaa. marka waa kana hadda anigoo soo xasheena burkii oo si fiican isku soo dhexgelineyno. marka waxaan sameyneynaa burka markaas isku soo dhexgeliyo. haddana biyo yaraan ku darayaa. waxaan dareemay weli inuu yara adag yahay, waa inaan jilciyo. markaad daartid burkaaga inuu jilco markasta waa inaan waqti badan gelisid si uu hadhow markaad karinaysid uu u noqdo bur aad u jilicsan ama rooti aad u jilicsan. waqti waa aniga hadda anigoo si fiican usoo xashaayo cabaar markaan joogaba kaamiradan diminaale. kaamirada way dheeraanaysaa haddii aan dhaho maanta dhan waa xashaaya. marka hadda waa kana sidaan quruxda badan oo igu soo baxay xashid badan kadib markaasaan u diyaarsaday digaag baan kasoo baxsaday firiijka. weli dhagax waaye. marka waxaan sameynayaa dabkaa wax yar saaraya. waa kana hadda digsigaas weyn waxaa igu saaran digaagi waaye. waxaan rabaa inay yara karto. haddana meeshaan waxaan kusoo shubtay yaanyadii. waa yaanyo iyo basal. waa yaanyadii aan u isticmaali lahaa chicken curryga. markay yaanyadii iisoo yara kartay waxaan kusoo daray shiishiidkii yaanyadii. haddana si fiican isku dhexgelinayaa. markaan si fiican isku soo dhexgeliyay haddana waxaan kaloo kusoo darayaa kabsartii waa midda aan la taqaaneen oo isku shiidneed. anisaasa firiijka u gashtaa maanta dhan wax ma tumi karo. marka waa kana alxamdulilah hadda sidaana isku soo dhexgashay quruxda badan. markay saa noqoto saan uma deenayo. marka waxaa sameynayaa dabka intaa usoo damiyo baa waxaan kusoo shubayaa makiinadii aan kusoo shiidi lahaa. waa kana marka hadda anigoo guranayo oo rabo inaan mashiinta kusoo shiido. marka alxamdulilah kadib hadda markaasaan usoo diyaarsaday intuu hidibkii weli ii karaayo waxaan soo hagaajisanayaa rootigii si fiican uu iigu soo faxay. marka waa kana hadda anigoo diyaarinayo sida qaabka uga sameyn lahaa rootiga. marka adiga nooca aragtida u sameysan kartaa, laakiin marmar waxaa fiican in desaynka la bedelo. wixii aragtida u roona si fiican loo cunaa. horta wax haday qurxan yihiin si fiican oo cunaa. marka hadda waa kana desaynka u sameyn lahaynaa soo diyaarinaya. sidaas markaan geesaha uga soo jarjaray oo saas isugu soo xiray kadib qaadaan saas ku siinayaa si uu maxaa la dhahayo hadhow markaa isku xiro. waxaan rabaa inuu noqdo qaab ubax ahaan kadib haddana markaan geeskaas isaga soo xiro haddana isla qaadadii aan sidii kusoo sameynaya geesahan saas uga soo xirxiraya. marka wuxuu u ekaanaya ubax. marka qurux ma ahano. marka hadda waa kana halkaas haddana bur kusoo shubanaya in asaga sii saaraan rabaa. bur anoo meesha ku shubin haddaan saaro wuu iiga dhigayaa. haddana ku labaada intusayaa sidii oo kale. marka kii labaad haddana waa kana isla sidii aan kii hore kusoo sameeyaan kusoo sameynaya. waan soo fidinayaa. markaan sidaas usoo fidiyo oo sidii kii oo kale usoo fidiyaan waxaan sameynayaa isla qaabka kii hore aan marinaya mididiyaan geesaha uga soo jeexaya. marka waa hawl fudud. maanta oo dhan hal nooc inaan rootiga u cunto ma fiicna. maalinba dhinac u jeex. marka haddana waa kana anigoo sidii usoo jeexjeexayo haddana isku soo laalaabayo. markaan isku soo laalaabo haddana qaadadiiaan sida daayo kale ku sameynaya si uu igu ekaado qaabka ubaxoo kale. marka hadda waa kana haddana waan isku soo xirayaa. markaan isku soo xiran geeskaas isaga xira haddana qaadaan haddana meeshaas ka marinaya si kuwaas kale sidaan soo yeelay aan qaadada u dhex marmariyey uu ugu ekaado. haddana waxaan sameynaynaa geesahan kasoo xirxireynaa. allaahuma baarik. asagana quruxuu kusoo baxaan ku dheh lagama sheekeyn karo. wakaasaa marka asagana sidaas quruxda badan uu kusoo baxay. maasha allah waa ubax cun waay ubax cun. haddana waa kana haddana ku saddexaadaan sidii oo kale soo sameyneynaa. adiga waxaa sameynaysaa labadii ugu horeysa haddaa aragtay kuwa kalena sidii oo kale usoo sameynaysaa. laba xaba hadaadba ka garatid kuwa kaleba kuu fududaanayan inaad sameysid. marka asagana hadda waa kana isla sidii oo kalean soo marinayaa. kaala iska aragaan ku dhehe qurux waay lagama sheekeyn karo. jileeca kaaga daran. marka burka markaa xashaysid si fiican u xash si uu maxaa la dhahaa hadhow markaad karinaysid ood ovenka gelinaysid uu kuugu noqdo bur aad u jilicsan oodan dheheynin. marka burka sidiisaba waxaa waaye
suu kuugu jilco waxay ku xiran tahay sida adigu u xashtid xashidaada ku xiran tahay hadaa aragtid inuu burka kaa yara adkaaday waxaa qaldan sidaa u xashte marka waa kana hadda waan soo diyaariyey sidaas quruxda badan uu kusoo baxay meeshaana waxaan soo marinayaa ukunta waa qaybta jaalaha bis ah qaybta kale kuma jirto qaybta jaalaha bis ah waa sidaas usoo marinaysaa qaybta jaalaha marka waxay kaa caawinaysaa markaa saas u marisid rootiga in uu rootiga noqdo rooti qurux badan oo markuu kasoo baxo ovenka gaduud ah uuna jilicsan yahay haddaad ukunta markaas haysanin bedelkeeda waxaa gashan kartaa caano booro oo hal qaado oo yara adag dhakruur ah baad saan oo kale usoo marin kartaa marka jileecuu noqonaya laakiin adoo waxba marin rootiga sidiisa hadaa gelisid uu kaa qalafaya asagoo adaga ovenka kasoo bixinaya marka hadda sidaan quruxda badan uu kasoo baxay allahuma baarik kaalan ku dhahay lagama sheekeyn karo kadib waxaa korka uga daadinaynaa iska sharaxaad ah sisinta ayadana waxay siinaysaa markuu gaduud noqdo sisintana korka looga daadiyay walaahi qurux aad ah waay maasha allah lagama sheekeyn karo marka hadda sisintiyan saan ugu soo shushubaynaa waxaan u diyaarinaynaa inaan ovenka gelino mid kale ovenka noogu jiray oo kan ka horeeyay 2 saxan aan sameeyay saxankii hore marka aan sugayaa inuu diyaar noqdo marka hadda waa diyaar kan in ovenka la geliyo bisa u haray saxanka kale ovenka kasoo bixineynaa allahuma baarik sidaan quruxda badan oo kusoo baxan ku dhahay lagama sheekeyn karo kaale isku arag marka kan hadda markuu saan diyaar u yahay kii kale aan gelineynaa kana intuu soo yar qaboobay isagana sugeynaa weelaan ku shubeynaa marka kaas hadda ovenka gelineynaa ovenka uu kulul yahay kana laga soo saaro daqiiqado kusoo karaya dhaqso 5 daqiiqo gudaheed marka waa kana hadda aniga soo bixinayo wili uu yar kulul yahay laakiin kuleel zaid amaahan waa kana hadda marka sidaas jilicsan uu kusoo baxo gaduudka oo quruxda badan aan ku dhahay allahuma baarik markuu rootigiisan diyaar noogu noqdo kii kana ovenka soo gelina meeshana waxa soo sameeynaa chicken curry markaan waqtigu dhamaado 12 waay wax yar waxa ii haray inaan wixii oo dhan diyaariyaa ii haray in waxa ii hartay aan maxaan dhahaa chicken curry kariyo shalay chicken zaid ugu daaha sababtana waxa waaye waqti dambe shalay chicken gale marka waa kana hadda yaanyadeeni oo haday soo shiidanaan dabka soo saaranay hilibkaasna waa kii dabka noo saarnaa caraftii oo dhan ku soo dareynaa wixii caraf ku yaalo dhan afeera u gelinay marka hadda waa kana anaga soo diyaarnay wax kasta ku soo darnay waa isku soo walaaqeynaa kadib waxaan ku soo dareynaa yaanyadeeni dabka noo saarnay oo noo kartay marka waa kana hadda sidaas quruxda badan ku soo baxay marka yaanyada iyo koow waxaan sugeynaa digaaga inay si fiican isku dhaxgalaan kadib waxaa ku dareynaa yogurt midka plain-ka ah oo wax flavor ah lahayn plain waay midka plain-ka ku dareysaa haddana marka midka plain ku dartid oo cabaar is dhaxgalaan yaanyada iyo digaagi iyo yogurt plain-ki markay si fiican isku dhaxgaleen haddana waxaan soo qaadanaynaa aan ku soo dareynaa coconut cream waa kana coconut cream-keena oo diyaar ah fridge-ku ku jira marka cabaaran banaanka dhigay laakiin xoogaa yar baraf waaye marka aniga noocaana isticmaalay laakiin adiga nooca rabtida isticmaali kartaa marka waa kana hadda chicken curry waa noo diyaar rootigeennina waa marka hala soo dhawaado waxaan rajeynayaa in idinkana soo tijaabisaan oo soo sameysataan rootigeeni iyo waxaani oo dhan anagoo isku soo diyaarsan waa kana waqtigan 4 daqiiqada yar ka dhiman daqiiqada yar 5 daqiiqo wax saas ah ka dhinaa marka fi amaanillah bye